daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhawow muuqaalka xiga ee Toosinay Technical. Waxaan horay janaalka u soo geliyay laba muuqaal oo aan kaga hadlayay sidaad ugu hortagi lahayd in laga jabsado Facebook-gaaga iyo WhatsApp-kaagaba. Waxaan labadaas muuqaal ku sharxay sidaad Facebook-gaaga iyo WhatsApp-kaagaba ugu samaysan lahayd wax loo yaqaano two-factor authentication. Faa'iidada oo leeyahayna horaan idinku soo sharxay oo ogaal la'aantaada lama kacsan karo Facebook-gaaga iyo WhatsApp-kaagaba. حتى هتو قفك فيسبوك كعنا يهايستو باسورد فيسبوك أما قفك واتساب كعسنا يهايستا لمبرك وكتاريه واتساب كاغا مقال كان محن كوسو قدين دونا سيدات اوغو هورتاغي لهيد إن لغا جبسدو انستغرام كاغا oo aad ugu samaysan lahayd waxa loo yaqaano two factor authentication haddii aad daneynayso muuqaalkan adigaan ku duubay daabashuucan marka aad doonaysid inaad two step verification aad ku xirtid Instagram-kaaga marka hore waxaad soo kicinaysaa application-kaaga Instagram-ka markaad ku dhufto kadib wuxuu ku soo bandhigi doonaa interface-ka ugu horeeya ee Instagram-ka waxaa ka xulinaysaa qaybta hoose kadib waxaa xulinaysaa saddexda ilig ee qaybta sare kadib waxaad ka xulinaysaa saddexda ilig sare qaybta hoose ee ku qoran tahay settings aad xulinaysaa markaad xulto kadib waxaad ka xulinaysaa halka ay ku qoran tahay security marka security xulto kadib waxaad xulin doontaa two factor authentication waa halkan u baahanaa markaad ku dhufto kadib waxaad taabanaysaa qaybta hoose ee ku qoran tahay get start kadib wuxuu ku soo bandhigayaa labadan option qaybta sare wuxuu ku dhahay choose your security method text ama authentication app qaybta text aan xulinayna maadaama u baahanaa in la soo diro anaga message wuxuuna message kugu soo diri doonaa lambarka uu kugu sameeyay Instagram-ka ama Facebook-ga aad ku xiran yahay lambarka Facebook uu kugu sameeyay yahay koodka Ingiliisiga 26 next marka next dhahdo kadib wuxuu ku soo bandhigayaa marka dhan dhahdo kadib hadda wuxuu ku cadeynayaa in two factor authentication-ka oo on yahay waxa leedahay dhan marka dhan dhahdo kadib wuxuu ku soo bandhigayaa lambardan waa recovery codeska tusaale ahaan haddii taleefankaaga laga qaybta kore fiiriyo haddii taleefankaaga laga xado ama oo dhumo ama aadan helin wax message ah oo code ah authentication-ka khuseeyo waxaad yani ku bedelan kartaa lambardan hal mar ayaa isticmaalaa sidaas oo ku cadeeyay code-kan waa muhiim marka screenshot ka qaado meel gasho oo meel fiican ha ku yeelan sida hadhow haddii Instagram-kaaga wax kala kaaga dhaco ama laga xado aad ugu xalisatid code-kan ama koobiyeyso oo meel fiican dhigo mid kasta koobiyeyso ama screenshot ka qaad hadba si ku fudud ay sameyn kartaa ugu laakiin lambarkan waxa la isticmaali karaa hal mar each code can only be used once sidaas meesha kugu qoray waa intaas sidaas ayaan loogu furtaa two authentication-ka qaybta Instagram-ka kuma haysan daawashada fadlan haddii aad channel-ka cusub tahay subscribe saar furo calaamada gambaleelka ah lana wadaag asxaabtaada intaa wixii ka dambeeyo guuleysta